Bismillah daawadayaal maanta sheekadeennu waxay ku saabsan tahay garaad wiilwaal oo ku xidhay xaaskiisa xadxilaale aad iyo aad u adag taasoo ay fahmi karaan dadka caqliga iyo garaadka u saaxiibka ah. Maalimaha ka mid ah ayaa garaad wiilwaal safar buu galay, kabacdi xaaskiisa ayuu ku yidhi aan kugu soo noqdo safarka markaan ka soo noqdo adigoo wiil dhalay iyo genya dhashay. Daawadayaal markaa maanta sheekadeennu intaasi ku saabsan tahay, bal aan eegno xaaskiisa waxay ugu jawaabi doonto iyo wuxuu ugu soo noqon doono. kabacdi wiilwaal wuu tegay wuuna kaxaystay faraskiisii waxaana ka tegay xaaskiisii iyo genyadii. hase ahaatee xaaskiisu waxay ahayd xaas aad iyo aad u caqli badan. way eegatay halkuu wiilwaal maro, meeshuu marayna way ka daba martay iyadoo iska ilaalinaysa ishiisa iyo inuu arko. waxay daba socotayba goor casar liiqii ah ayaa wiilwaal wuxuu u soo hoyday reer. sabankii wiilwaal waxaa la yaqaanay hadduu wiilwaal reer u soo hoydo in lagu casuumo habeenkaa gabadha ama lagu martiqaado gabadha. reerkii way yaabeen habeenka wayna ashqaraareen oo waxay isdheen talow yaa wiilwaal u noqonaya gabadh habeenka. halka ay xaaskii wiilwaal meesha joogto wayna u timi oo waxay ku tiri anaa u noqonaya caawa wiilwaal gabadh, balse hal cosi ayaan wataa, cosigaas oo ah inaad genyada igu geysaan faraska. cosigeedii waa loo aqbalay waana loogu geeyey. habeenkiina yadaa wiilwaal gabadh u noqotay isagoo aan garanayn inay tahay xaaskiisii. waxay habeenkii oo dhan la joogtaba aroortii hiirtigu waa beri ayay ka jarmaaday, waxayna ka xaday kabihiisii kab ka mida say ugu noqoto markhaati. geeyadiina halkii ayay ku sadqaaday, kabacdina alaasaydii ayay ka jarmaaday, dibna waa u noqotay. safarkii ayuu ka soo noqday wiilwaal, wuxuuna u yimi xaaskiisii oo uur leh iyo genyadii uur leh. kabacdi wuu ashqaraaray wuuna weydiiyey wax cidda uurka u yeeshay, waxayna ku tiri adaa uurka u yeelay, faraskana genyadana faraska ayaa uurka u yeelay. wuxuu ku yidhi maxaa ku markhaatiya. kabacdi waxay soo saartay kabihiisii kab ka mid a. kabacdi aad iyo aad buu ula yaabay xaaskiisa caqli badnaanteeda. daawadayaal sheekadu halkaas inagu joogaysaa.